إيران isku dayaysaa inay samayso horaantii maanta 6 doonyood oo Iiraan ay leedahay ayaa isku dayay inay fuulaan markab shidaal oo wata calanka Mareykanka xilli uu marayay marinka Hormuz inta kadib Iiraan waxay dirtay diyaarado aan duuliye lahayn oo ku dul wareegay markabka diyaaradaha qaada oo Mareykanka oo ku sugan gacanka Oman afayeenka waa la taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka Captain Timmy Hawkins ayaa dhacdadaani kadib soo baxay isagoo ka hadlay in diyaaradda nooca aan duuliye lahayn ee Iiraan ay soo dul istaagtay F-35 oo Mareykanka uu leeyahay oo ku dul suganeed markabka USS Ibrahim Lincoln wuxuu intaa ku daray in markabku uu ku sugnaa qiyaastii 500 oo mayl ku dhawaad 800 kiiloomitir meel ka baxsan xeebaha Iiraan xilliga diyaaradda aan duuliye lahayn ee Iiraan soo dhawaatay iyadoo leh ujeedo aan caadi ahayn mar kale warar soo baxaya sheegay in Iiraan ay Mareykanka u sheegtay mar rabno inaan idin kulanno Turkiga haddii aad rabtaan wada xaajood aan ku kulanno Oman Iiraan si rasmi ah ayay u qiratay dhacdada doonyaha balse waxay ku dooday in markabka shidaalka uu galay biyaha iyadoo leedahay ama sheegato arrinta diyaaradda aan duuliye lahayn ee dul wareegtay markabka Mareykanka Iiraan waxa dalakamaysan soo saarin wali si kastaba qof kasto si dhow la socda waxa u dhaxeeya Mareykanka iyo Iiraan wuxuu yahay in Iiraan ay talaabooyin noocan ah marar badan sameysay laakiin markaan marxaladda waxay halis u tahay in dagaal keento taasi oo khatar weyn ah qodobka ugu xiisaha badan ayaa doorka Turkiga wuxuu sameeyay dadaal ballaaran si looga hortago dagaalka dhex qarxa Iiraan iyo Mareykanka wuxuu Turkigu ku baaqay wada xaajood wuxuuna muujiyay diyaar u ahaanshiyaha in dhulkiisa lagu qabto wada hadal xitaa Erdogan iyo Hakan waxay kulamo dhowr ah la yeesheen wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan